ilaawi maayo runtii sheekadan waxay igu dhacday maalin maalmaha ka mid ah. Xilligaas waxaan jiray 15 sano. Waxaan arkay hooyaday iyo aabahay oo isku qaylinaya. Sababta isku qaylinayeen waxay ahayd aniga oo guriga xilli dambe imaan jiray. runtii maalinkaas go'aanka aan qaatay wuxuu ahaa go'aan aad iyo aad u qaldan. maalinkaas waxaan go'aansaday in guriga dhan aan isaga tago. si aan u socday wadada waxaan arkay saaxiibkay. wuxuu igu dhahay halkee baa u socotaa, anigana waxaan ka horkeelay jawaab aad iyo aad u culus. waxaan ku dhahay maxaa kaa galay. aad iyo aad baan u caraysnaa. saaxiibkay wuu ila yaabay. runtii anigana aad iyo aad baan u caraysnaa oo waxaan la yaabanaa hooyaday iyo aabahay mar walba isku qaylinayaan, anigana igu qaylinayaan. runtii ayaga waxay ku qaylinayeen in guriga xilli dambe habeenkaan imaan jiray. asxaabteeda ayaan la soo baashaali jiray. waxaan lahaa balwad, markaas waan isticmaali jiray. inta aan wadada socday ayaan waxaan arkay meel aan moodo sida meel howd camal ah. runtii bakhdin yare ee isoo gashay, kadibna fikirkayga ayaan iska watay. aad iyo aad baan u caraysnaa, mana dareemi karin waxaan oo dhan. cabaar markii aan socday ayaan waxaan dareemay in waddo qaldan aan ku socdo. runtii waa qof caraysan ayaan ahaa. waxaan ku arkay meel geesa qof meesha fadhiya, kadibna uu qushuucsanaa wejigiisa oo dhan ma aan arkaynin. cabaar ayaan kusii dhawaaday. runtii waxaan hubaa qofkan in qof ahaa qof caadi camal ah, waa uuna caddaa. kadibna mar ayaan kor istaagay. waxaan ku dhahay waryaa mii maqashaa. kadibna wuxuu u muuqday qof dhalinyaro ah. markuu isoo fiiriyay ayaan waxaan arkay inuu lahaa weji cabsi leh, afu weyn waa uu lahaa. aad iyo aad baan u yaabay. wuxuu dhahay maxaad doonaysaa oo maxaad iga rabtaa oo aniga ii weydiinaysaa waxaan ahay. runtii aniga waan yaabay. waxaan isku dayay in aan la sheekaysto. agtiisa ayaan fariistay oo waan sheekaysanay. cabaar markii aan sheekaysanaynay ayaan sheekadiisa aad iyo aad baan ugu baqay. runtii mar ayuu sigadiisa gacantii ugu taabtay. waan yaabay, gacanta ayuu si xoog igu qabtay. waxaan dareemay ninkan inuu xanaaqay. anigoo dhan waa miir daboolmay. wejigiisa oo dhan wuxuu isku bedelay mid dhiig leh. kadibna waan isaga cararay. runtii markaan waan suuxay. cabaar markii meesha aan joogay ayaa waxa ii yimid saaxiibkay. kadib waxaan dareemay in mirka markaan uu isoo laabtay saaxiibkayga uu isbitaalka ugu soo booqday. runtii waxaan hubaa markii aan miir daboolmay in saaxiibkay uu isoo qaaday. kadibna wax walba oo dhaca dhan waa uu sheekeeyey. oo waxaan ku dhahay nin ayaa helay kadib markuu i qabsaday. anigoo dhan waa miir daboolmay. runtii saaxiibkay wuxuu ugu dhahay meeshaas waa laga baqaa, reer aakhiraad ayaa jooga. ninkaas wuxuu ahaa nin reer aakhiraad camal ah. runtii maalinkaas waxaan hubaa in go'aan qaldan aan qaatay. ninkaas hadduu aniga i dili lahaa maalinkaas oo saaxiibkay uu isan arki lahayn maxaa igu dhici lahaa.